in meesha lagu xafidan karo dawooyinka iyo agabka la isku qarxiyo ay tahay suuliga laakiin ma aha goobtii ku habboonayd waxaana lama huraana in laga fogeeyo maadaama dawooyinka iyo alaabooyin kale oo badan ay u baahan yihiin cimilo ka duwan tahad iyo goor qaboobaha ah ee suuliga dhexdiisa ka jirta alaabtaasi oo aynu barnaamijkeena ku soo bandhigi doono waxa ugu horeysa saabuunta oo aynu si joogto ah u isticmaalno suuliyada dhexdooda laakiin xilliga badan ee ay taallo goobta qabow iyo inay ka qalali weydo biyihii la geliyey waxay ku keenayaan saabuunta jidhka inay lafta ka qoydo oo ay sida ice creamka oo kale noqoto kadibna ay gacantaada soo kala raacdo oo la isticmaali kari waayo waxaana intaas sii dheer in loo baahan yahay inaad daboolka yar ee saabuunta lagu rito xitaa aad ka nadiifiso qoyaanka marka aad ku ridayso isla markaana aad ka fogeysid suuliga waxaa kaloo aan habboonayn in dawooyinka la dhigto suuliyada maadaama aanay dawooyinku xamili karin muddo maalmo ah cimilo aad u qabow iyadoo dawooyinku badan ay u baahan yihiin heerkul gaadhaya 20 ilaa 25 digrii sida ay noo caddeeye bahda caafimaadku dawooyinka iyo maadooyinka loo adeegsado isqurxinta ayaa iyaguna maadooyin ka samaysan dheecaano dareere u badan kuwaasoo cimilada qaboobaha ay bedeli karto tayadooda iyo qaabka ay u samaysan yihiin waxaana habboon in la dhigo cimilo diiran oo u dhiganta qolka hurdada oo kale maadaama suuligu yahay qolka ugu qabow guriga sababtaa la mid ah darteedna waxaa lama huraana inaan cadarrada la dhigin suuliyada dhexdooda inkastoo oolitaanka cadarradu uu suuliyada u kordhiyo bilicda iyo udgoonkaba haddana in muddo dheer goob qabow la dhigaa waxay cadarrada ku keentaa inay urtoodu isbedesho oo udgoonkoodu yaraado alaabta elektroonikada ayaa iyana aan u wanaagsanayn in la dhigo suuliga gudihiisa maadaama ay khatar tahay inay had iyo gooraale biyuhu ku duulaan biyuhuna ay yihiin dabgudbiye taasina ay shoodh iyo waxyaabo lamida ku dhalin karto alaabta elektroonikada marka la shido cimilada qabow ee ay xilli dheer yaalaan tuwaaladu waxay ku keenaysaa inay suyucaan oo ay si wacan u qalali waayaan waxaana ku dhuman kara bakteeriyada qaarkeed waxaana ku habboon tuwaalka in la dhigo meel qabogu ka yaryahay oo qallalan isla markaana mar kasta oo la isku masaxo loo dhigo cadceedda si ay u qallalaan waxaa kaloo agabkaa ka mid a buugaagta oo aanay ku wanaagsanayn in lagaga tago ama la dhigto suuliyada dhexdooda maadaama ay qoyaanka iyo cimilada qabowguba halis ku yihiin waraaqaha buugaagta oo uu cimri degdeg ku dhici karo sheefida gadhka ama muusta ayaa iyana u baahan in laga fogeeyo suuliga maadaama ay tahay shay bir ah oo ay qaboobaha joogtada ah ee dhex taalla uu ku keeni karo inay daxalaysato kadibna ay caafimaadka